السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدعوة كسر دواذا كنال كإسلامي تكنولوجي مقعي وعبسلان أبو بكر وحن كسر دويني 10 كيسة حاجة برنامج كلوي غانا كاينا ماستر أو أبليكيشن رهانتي بروفيشنال فيديو إديتر أما أبليكيشن رهانتي فيديو يدا أما مقالة الله هبيادي كو استعمالي إسلام موبايل كاغا hore waxaynu soo dhignay 3 cashir ayaynu soo dhiganay cashirka koowaad waxaad ku helaysaa runtii application kan oo free ah oo bila watermark sidoo kale introduction baynu kaga hadalnay cashirka labaadna iyo cashirka saddexaadna iyagana waynu ka soo hadalnay insha Allah taala sida ogeed commentiga ugu horeeya insha Allah taala ayaad ka heli doontaa saddexdii cashar ee hore insha Allah taala haddii aad nala socon haddii aad nala socotayna ahlan wa sahlan baanu leenahay sidoo kale hore waxaynu soo gelinay barnaamijyo ku saabsan graphic design ka kuwaas oo wali hadda aan dhamaan sida ogeed insha Allah taala iyagana waxaan dib u bilaabi doonaa usbuuca soo socda inay ku soo aadan insha Allah taala insha Allah taala cashirkeena insha Allah taala ku sii socono insha Allah taala haddii aynu halkan sida caadiga waxyaabo aynu hore u soo edit garaynay baa halkan ka helaynaa sida ogeed cashirkii ugu dambeeyay runaantii ayaynu sii wadi doonaa insha Allah taala sida ogeed waxaan soo furi doonaa halkan ayaan soo furi doonaa oo waa kan cashirkii ugu dambeeyay oo runaantii aan soo gelinay kanaalkeena sida ogeed markaan gujino waxaan ayay noo soo bixi doonaa sida ogeed halkan baynu mar labaad sii gujin doonaa sida ogeed cashirkii baynu insha Allah taala dhex iman doonaa sida ogeed maanta insha Allah taala waxaynu ka hadli doonaa beedimkii waxaynu ka hadli doonaa qaabka loo soo zoom gareeyo insha Allah taala sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa animationska insha Allah taala sida ogeed waxaan rajeynaa inaad fahanteen sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa qaabka text loogu soo daro insha Allah taala saddexda qodob ayaynu maanta insha Allah taala ka hadli doonaa sida ogeed cashirkii hore waxaynu ku soo aragnay qaabka frame-ka loo soo geliyo muuqaalkana loo soo geliyo insha Allah taala frame-ka mobile-kana loo soo geliyo sida ogeed hadaan halkan ku dhufanayno bilay karayno oo inuu daawaysna dhaahno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته okay waa cashir hore aan YouTube-kayga ka soo duubay screen-ka ayaan muuqaalkan ka soo duubay sidoo kale frame-kana markaynu soo gelinay waad arkaysay ma sha Allah taala rajeynaya haddii aan nala qabsan cashirka hore inaad soo daawatay iyo casharadii hore ay noqonaysaa insha Allah taala sida ogeed haddii la yiraahdo waxaan sameynaynaa waynu soo zoom gareynaynaa qayb kamid ah muuqaalka insha Allah taala sida ogeed xoogaa baynu yara daawanaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بدعوة كسر دواذا كنال كإسلامي تكنولوجي مقعي وعبسلان أبو بكر halkan naga daawanaysaa naba kanaalka Islamic Technology insha Allah taala maanta waxaynu ka hadli doonaa kanaalka Islamic Technology casharada aynu soo gelinay marka ugu horeysa halkan search bartiga ayaad ka baari doontaa Islamic Technology adiga ku qor okay halka laga baariyaa rabaa inaan soo zoom gareeyo sida ogeed markaad muuqaalka dhageysto adiga meesha aad rabto inaad soo zoom gareyso marka sida caadadeenoo ah markaynu muuqaalkan ku soo daranay muuqaalka hore wad la socotay ka ugu horeeya hadaynu xagga timeline-ka aan imaadno ka ugu horeeya waa background-kan ku muuqda ka ku xigaana waxa weeyaan muuqaalka halkan dhexda ku jira halka hadaan u socdo ka ku sii xigaa runtii waxa weeyaan frame-ka ku sii xigaan waa loogadan ayaa ku sareysa sida ogeed frame-ka mobile-kuna waa kaas aad arkaysaan sida ogeed marka waxaan soo zoom gareynaynaa waa labadan oo kaliya waa frame-ka waxaan soo zoom gareynaynaa insha Allah taala waa frame-ka haddii la yiraahdo oo kan ah iyo walibana muuqaalka oo kaasiya sida ogeed marka ugu horeysa frame-ka ayaan gujinayaa frame-ka ayaa marka ugu horeysa la gujiyaa si loo soo dhageysto marka frame-ka ayaa taabanaysa hadda frame-ku waa ii select gareysan iyo hareeraha ayuu ka muuqdaa inaan highlight gareeyay sidoo kale hareeraha ayuu ka noqday maxay jaale sida ogeed waxaan sameynayaa marka halka aan qabto si aan u soo zoom gareeyo kadibna halka yar baan ku dhufanay halka yar furaha oo kale amal ku qoran yahay ayaad ku dhufanaysaa kadib marka halka ku dhufato waxa ku soo baxay calaamadan ayaa ku soo bixi doonta taa plus-ka ayaad ku dhufan doontaa plus-ta marka ku dhufato kadibna zoom-ta ayaad soo qabsan doontaa halkan ayaad qabsan doontaa bahalka si aad u soo weyneysato oo aad soo habaysan doontaa muraayada soo leegeysin doontaa imika waan soo jiiday waan soo weyneeyay sida ogeed halkaasoo kale aan tusaale ahaan keenay saas baan ka dhigay kadibna waxaan rabaa inaan takalana idna saasoo kale u soo weyneeyo sida ogeed waxaad samaynaysaa mar labaad muuqaalka ayaad ku dhufan doontaa markaad muuqaalka ku dhufato sida ogeed halkan ayaad ku dhufan doontaa insha Allah taala furaha ayaad ku dhufan doontaa furaha yar markaad ku dhufato kadibna halkan ayaad ku dhufan doontaa si uu kuugu sameeyo insha Allah taala animation-kii sida ogeed oo marka uu u soo weynaado kadibna halkan ayaad qaban doontaa si aad u soo weyneyso saasaan u soo jiidayaa runtii ilaa aan u maleeyo runtii inay si fiican isku fit gareeyaan ama si fiican ay u buuxisay kadibna sas wad arkaysaa sas baan u jiidayaanoo gacmahaygan ku riixaya hadda halkan haddaad qabato rotate garaynaysaa halka hoosta marka dhawaan soo jiidayna waa meesha laga weyneynayo waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin fahanteen sida ogeed haddaba way kuu muuqataa runtii sidaan isku leegaysinay kadib halkaasaan ku dhufanayaa tigta halkaas baan ku dhufan doonaa kadib marka halkaa ku dhufto muuqaalkeenu balay garayn doonaa insha Allah taala waad ila arki doontaan muuqaalka si fiican baynu usoo daawanaynaa marka ugu horeysaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بدعوة كسر دواذا كنال
Islamic Technology magacaygu waa Cabsalaan Abubakar halkan naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology insha Allah taala maanta waxaynu ka hadli doonaa kanaalka Islamic Technology casharada aynu soo gelinay marka ugu horeysa halkan search bartiga ayaad ka baari doontaa Islamic Technology adiga hadda uu istaagay marka hore uu soo zoom gareeyay marka ka dambaysa sida awgeed imika waxaan baaray halkan si toos ah uga arki kartaa waad arki kartaa igu fiirso Islamic Technology adiga ku qoray insha Allah taala halkaas ayaad ka baari doontaa kadib marka halka ka baadho waa kan kanaalkeenu runtii kadib hadda waxaa rabtaa markaad meelahan oo kala soo gaadho inaad waxoogaa yarayso ama aad gebigiisaba halkiisii aad ku celiso sida awgeed oo aad zoomta aad dib u celiso insha Allah taala sida awgeed waxaad samayn kartaa halkan ayaad runtii ku dhufanaysaa mar kale ayaad ku dhufanaysaa frame-ka ayaad ku dhufan doontaa kadib markaad frame-ka ku dhufato kadibna halka yare furaha mar labaad ku dhufan doontaa insha Allah halkaas marka ku dhufato furaha kadibna halkan ayaad ku dhufan doontaa insha Allah halka marka ku dhufato halkaas ayaad ku dhufan doontaa kadib marka halka ku dhufato frame-ka ayaad soo riixi doontaa ilaa aad gaadho meeshii yareed halkan yare gacan qabsiga ilaa markaas ay ku soo baxdo kadibna saas aad u yareyn doontaa markaad u yareyto waxoogaa saa u yareyso frame-ka waxaad leegeysiin doontaa insha Allah taala meeshiisa ayaad leegeysiin doontaa okay qaabkaas oo kale marka ka dhigta frame-ka waad iska daynaysaa kadibna mar labaad waxa ku dhufanaysaa halkan muuqaalka taabanaysa ama muuqaalka halkanba ka taabo ama halkanba hoosta timeline-ka ka taabo waliba timeline-ka ka taabata fiican muuqaalka marka taabato kadibna hadana halka furaha yar baad ku dhufanaysaa furaha marka ku dhufato kadibna halkan ayaad ku sii dhufanaysaa halka marka ku dhufato waxa sameynaysaa insha Allah saas bay u riixaysaa ilaa aad qabato halka yare hoosta gacanta ay ku soo baxdo lagu qabanaya kadibna waa isleegeysiinaysaa adigoo yareynaya kadibna halkan ayaad ku dhufan doontaa kadib marka si fiican isugu kala leegaado sida ogeed imika hadaynu dib muuqaalka aynu u daawano oo aynu soo bilowno marna uu soo weynaanaya marna uu soo yaraanaya kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology magacaygu waa Cabsalaan Abubakar halkan naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology insha Allah taala maanta waxaynu ka hadli doonaa kanaalka Islamic Technology casharada aynu soo gelinay marka ugu horeysa halkan search bartiga ayaad ka baari doontaa Islamic Technology adiga ku qoraya insha Allah taala halkaas ayaad ka baari doontaa kadib marka halka ka baadho waa kan kanaalkeenu runtii kadib kanaalkeena ayaad halkan ku dhufan doontaa oo kanaalka ugu horeeya ku soo baxaya waa isaga okay hadda waxaad arkaysaa inuu yaraaday isla markaasna uu gaaray halkii loogu talagalay inuu gaaray sida awgeed يعني هذا مقال كان هو مقال دميسترن سفي عن رنهانتي سدان قاب كاسو رنهانتي عشرانتي usoo jeediya dad muuqaalkayga hada daawatay marka qaar anigoo shay soo zoom gareynaya marka qaar anigoo shay runhaantii dib u sii yareynaya sida awgeed barnaamijkan uma runhaantii aanu inta badan isticmaalaa qaabkaas waan u isticmaalaa sida awgeed dad badan ayaa su'aalo badan ka keenay qaabka runhaantii aan waxaan u edit gareynaya ama qaabka runhaantii aan muuqaalada u soo geliyo barta YouTube-ka sida awgeed in ay fahmeen insha Allah taala waan rajeynaya insha Allah taala hadii aan fahminay commentiga noogu reeb insha Allah taala si aan ku caawino qaybta labaad insha Allah taala aan rabaa waxa weeyaan qaabka tagaska loogu soo daro tagaska marka halkaas ku dhufanay layers ay ku qoran tahay layerska marka ku dhufto kadibna waa kan tagaska iyo qoraalkii tagas halka t ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa kadibna qoraalka ayaad ku qoraysaa tusaale ahaan waxaan rabaa inaan shaashada ku qoro ka soo qaadba inaan rabo inaan ku qoro insha Allah subscribe ku qoraya subscribe marka ku qoro kadibna okay baan siinaya halkaas ku dhufanaya okay ku qoran tahay kadibna shaashadeen ku arkana qoraalkii waa halkan dhex yimid wakaas waxaan ka soo dul qaaday halkan sida awgeed markaan halka ka soo dul qaadnay waxa loo baahan yahay sidoo kale insha Allah taala inaynu qoraalkan aynu colorkiisa bedelno qoraalka hadda waa inoo highlight gareysan yahay sababtoo ah wax badan baa halkan inoo yaala marka colorka hadaynu rabno inuu bedelno halkaas aynu ku dhufanayna halkaas halka marka ku dhufano colorka kadibna casaamad tusaalahan ka dhigaya ama guduud kadibna halkaas ayaan ku dhufan doonaa markaan guduud ka dhigo kadibna waan yaro weyneyn karaa anigoo halkan qabanaya xoogaan soo yaro weyneyn karaa sidoo kale waan yareyn karaa sidoo kale halkaas ayaan dhigayaa sidoo kale hadaan rabo inaan farta nooceegan aan iska bedelo halkan ay ku qorantaan ku dhufan doonaa kadib marka halka ku dhufto faraha inoogu jira waa kuwan maanta sida caadiga marka dad application-ka la degtay oo application-ka la degtay si dib yar baa u soo download gareysan kartaa adigoo halka ku dhufanaya dad fara kale oo saayida aad rabto far kale oo saayida marka hadii aad rabto inaad soo download gareysato halkaas ku dhufan doontaa insha Allah taala kadib marka halka ku dhufato waxyaabo fara badan baa halka kaga soo bixi doonaan iyo hadda internetka ii furan sida awgeed fara badan baa halkan ka helaysaa imika kaas ayuu taagan yahay kana waa far kale balkan aynu taabano noocyo kale oo fara ayuu ku soo dhigaya laga yaabo in luqado kale xataa yihiin hoos xataa u socoto waxaad helaysaa Japanese iyo Korean iyo Arabi iyo handwriting iyo Arabi hataa dad rabta halkan kala soo degaysaa sida awgeed adigu kolba farta la soo degaysay ku xiran tahay dad ku dhufatay ma ku soo download gareysmaya sida awgeed diyaar uma nihiin aan la soo degno halkaas ayaad la soo degi doontaa insha Allah taala sida awgeed halkaas ayaan ku dhufan doonaa si aan iskaga xidho insha Allah marka farta marka rabto inaad bedesho weeyaan hadda farta marka ma bedelino sida awgeed
isla markaas halkan waa animations ama qaabka animation loogu sameeyo in animation iyo waxa weeyaan overall animation iyo out animation saddexdaba haddaynu isticmaali doonaa insha allahu tacaala sida awgeed marka ugu horeysa bal aan daawano si aad animationska horta u fahanto waa inaan daawanaa fartan marka ugu horeysa iyo inay iska taagan tahay sida awgeed waa dhaqdhaqaaq farta lagu sameeyo sida awgeed halkaas baynu insha allahu tacaala ku dhufan doonaa fartan weliba saas baynu xoogaa u yar jiidi doonaa farta markay bilaabmayso iyo markay dhamaanayso waynu arki doonaa insha allah imka markay xoogaa saa usoo daarna muuqaalka day asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fartu way iska soo booday fartu markay soo gelaysay si tartiiba umay soo gelin way soo booday sidoo kale fartu wax dhaqdhaqaaqa ma leh sida awgeed dhaqdhaqaaq baynu u sameynaa markay dhamaanaysana waynu daawanaynaa fartu halkaas bay ku dhamaanaysaa iminka halkaas ayay ku dhamaanaysaa sida awgeed markay dhamaanaysana waan daawanaynaa u fiirso insha allahu tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa kanaalka islamic technology hadda big bay hal mar odhanaysaa ma arkaysid hal mar bay boodaysaa sida awgeed waxaan rabnaa in haddii ilaha yidhaahdo aynu fartaasna ay dhaqdhaqaaqa inoo sameyno sida awgeed halkan farta ayaynu saa u gujin doonaa farta markaynu saa u taabano waxay noo soo bixi doona waxyaabihii oo dhan ba halkay noo soo bixi doona inoo soo bixi jiray sida awgeed halka in animationkaynu taabanaynaa markay soo baxaysa waxaanu leenahay waxaan ka dhiganaa mid ka soo baxaysa right side xagga midig mid ka soo ordaysa saas oo kale u soo ordi doontaa marka halkaas aan ku dhufan doonaa noocyadan dhan wada tijaabin doontaa qaar walba macna ay leeyihiin sida awgeed adiga ayaan insha allahu tacaala kaagaga tegaya inaad walba tijaabiso sida awgeed adiga ka ku qanciya insha allahu tacaala ayaad isticmaali doontaa sida awgeed ka right side ay ku qorantahan ku dhufanaya anigu weliba left aan ka dhigo mid left side ama xagga ka imanaya bidixda sida awgeed qaabkay usoo gelaysa waad arkaysaa sida awgeed mar kale aan gujinaynaa kadibna waxaan ku dhufanaa halkay ku qoran tahay overall animation markaynu ku dhufanno kadibna waxaan iska dooranayaa ka ay ku qoran tahay square aniga kaasaan iska jeclahay inaan ku doorto kadibna waan daawanaynaa qaabka u shaqeynayso farta way dhaqaaqaysaa animation bay samaynaysaa sida awgeed qofka xataa daawanaya muuqaalkaaga waa ay soo jeedinaysaa oo ay tusaysaa subscribe-ka sida awgeed qaybta kalena out-kana bal aynu daawanayno insha allah marka dhamaanayso hal mar ayuu booday sida awgeed mar kaleynu taabanaynaa halkan mar labaad taabanaynaa halkan ay ku qoran tahay sheegeen runtii tagasku halku inoo yaalo timelineka inooga yaalo kadibna waxaan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay out animation markaan ku dhufano kadibna waxaynu dooranaynaa mid ku noqonaysa runtii left side-ka waan daawanaynaa markaa bal imika asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nabad daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka islamic technology magacaygu waa cabsalaan abubakar halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka islamic technology insha allahu tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa kanaalka islamic technology okay si fiican baad u fahantay sida awgeed halkan waad kusoo loogadan waad kusoo dari kartaa animations iyadana sidan oo kale baad u taaban doontaa kadib markaad taabato waxaan oo dhan baa kuu soo baxaya qaabkaas animation ugu samayn kartaa shay kasta oo aad kaga soo dartay halkan ay ku qoran tahay layer animation waad u samayn kartaa sida awgeed insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inaad fahantay sida awgeed haddii aad rabto welibana haddii eebaha oo dilino ogolaada haddii aad rabto inaad tagaskan leegeysiiso bilow ilaa dhammaad uu ku jiro halkan aad qaban doontaa deetana saasaad u jiidi doontaa ilaa dhammaadka timenailka sidana la iskugu soo riixaa mar hadduu timenailku kaa dheeraado sidaas la iskugu soo riixaa markaa saas ayaynu iskugu soo riixaynaa kadibna sidaas baynu u durkinaynaa marka haddii muuqaalka wax qaladaadii kaaga jirjiro qaabka loo jarjaro muuqaalka hore inuu aragnay sidoo kale qaabka frameka loogu soo daro hore inuu aragnay sidoo kale animationka waad ku samayn karaysaa sida awgeed muuqaalkani waxaan odhan karnaa waa muuqaal muuqaalka waad dhammaystiri kartaa yani wixii qaladaadee codadka ah waad ka jari kartaa wixii qoladaadee xagga muuqaalka waad ka jari kartaa sida awgeed waxaan isku dayaynaa balkan inaynu insha allahu tacaala aynu haddii ilaha idhaahdo waynu sheergarayn doonaa oo waynu export garayn doonaa oo waynu daabici doonaa muuqaalka isla markaasna muuqaal caadi si uu noqdo YouTube-ka la gelin karo sida awgeed markaad rabto inaad share garayso halkan ku dhufan doontaa inaad insha Allah tacaala YouTube-ka rabto inaad geliso halkan markaad rabto aad ku dhufato saddexda halkaas yar markaad ku dhufato insha Allah kadibna waxa ku soo bixi doona waxyaabahan ku soo bixi doona halkaas sare aan ka soo bilaabay kaas waa HD waa muuqaal runtii tayadiisu aad ay u sareyso waxa uu noqonayaa dhowr GB sidoo kale mobilada qaarkood inay runtii render gareyn waayaan baa laga yaabaa ka ku xigaana waa tayada kale ku xigta way kala tayo badan yihiin sida awgeed kaas 720 kan inta badan aad u isticmaalaa kaasna aad iyo aad u muhiim u yahay sidoo kale hadiiba mobilkaaga uu yara liito oo runtii aanu capacity fara badan lahayn kan 360 ka waa nooc loogu talagalay in muuqaalada lagu daawado mobilada sida awgeed halka runtii markasta wax ka dhigi doonta halka rate frame rate ka halka ku qoran tahay wax ka dhigi doonta insha Allah tacaala
waxaa ka dhigi doontaa 25 ilaa 30 insha Allah tacaala qaybahan kale ma sii wacna sidoo kale halkan ayaad capacity ka yareyn kartaa brightness-ka oo muuqaalka ku soo muuqanayo low iyo high marka halkaas aad u riixi kartaa sidoo kale muuqaalka inta MB uu noqonayo marka YouTube-ka xada gelinaysa halkan aad ka arkaysaa halka ka arkaysaa ka wara afwan halkaas ka wada marka 16 MB weeyankani high baan waxoogaa ka yara dhigayaa sida awgeed marka muuqaalka brightness-kiisa iyo iftiinkiisa runtii kan ayaan mar walba go'aaminaya sida awgeed mar walba adiga macquul kugu noqda isla markaasna si dhaqso leh mobile-kaaga u daabacayo isla markaasna YouTube-ka aad ku gelin karto isla markaasna marka daawato aad ku qanacdo tayada muuqaalka ayaad insha Allah tacaala ka dhigi doontaa anigu area-daasan ka dhigan doonaa kadibna halkan export ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa muuqaalka wanda export gareynana hadda muuqaalka u daabacaya muuqaalka markuu dhameeyo insha Allah tacaala gallery-geenu ka daawan doonaa insha Allah okay muuqaalkii runtii hadda waa inoo render gareeyay sidoo kale waa inoo dhameystiray sida awgeed waxa uu leeyahay iska raid gareey marka waxaan leeyahay waxba hay weydiin mar dambe halkaas iskaga dhufanaya marka waxa galoo iga xusuusina marka muuqaalka daabacayo waqti ay qaadataa waayo sida weeye kombiyuutarada iyo shay kasta oo runtii wax render gareynaya ama wax cusub soo saaraya waa nooca sida awgeed halkan ayaad ku dhufan doontaa mar dambe hay weydiin baa leenahay sida awgeed waan iskaga bixi doonaa muuqaalkana gallery-geenu ka daawan doonaa insha Allah tayadiisana waad arki doontaa kadibna halkan runtii ayaad ku dhufan doontaa bal muuqaalkeenu balay gareyn doonaa waynu daawan doonaa tayada muuqaalka Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa nabada wadayaal ku soo dhawaada kanaalka Islamic Technology wow muuqaalkan waa muuqaal runtii aad iyo aad u tayo badan sida awgeed waxaan rajeynayaa inaad runtii fahanteen isla markaasna muuqaalkan saas ayay YouTube-ka lagu gelin karaa insha Allah tacaala casharka labaadna wad la socon doontaa insha Allah tacaala waxyaabo kale oo muhiim ah ku soo qaadan doona ama features kale oo ku qarsoon insha Allah tacaala application-kan KineMaster ee runtii free-ga 100%. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.